ugu dambeyn Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa inay maanta ogolaatay in magaalada Gaza la gaarsiiyo raashin cunno iyo shidaal laakiin waxa arinta wali diidan oo isku dayay inuu hor istaago wasiirka maaliyadda Israa'iil Bezalel Smotrich waxaynu barnaamijka isku eegi doonaa maxaa keenay Israa'iil in hadda shuruud la'aan ay ogolaato in magaalada Gaza loo fasaxo isbuuciyo oo ay xayiraad dul saarnayd raashinka cunnada iyo sidoo kale shidaalka qodobada sidoo kale aan barnaamijka galabta idinku hayno waxa kamid ah Israa'iil ayaa horaantii maanta si daran u duqaysay magaalada Gaza gaar ahaan koonfurta magaalada Khan Yunis iyadoo la sheegay maanta in halkaasi ay ku dishay koox wariyaal ugu caansanaa wariyaal reer Gaza oo si daran ugu gubtay goob kamida goobihii Israa'iil ay duqaysay iyana faahfaahinta barnaamijka ayaan isku eegi doonaa xaaladda Gaza oo maanta aad looga dayrinayay sida xaalku ahaa qodobada sidoo kale aad maqli doonto waxa kamid ah Netanyahu booqashadiisii aqalka cad ee dalka Mareykanka waryaable ayaa ku soo kordhay iyadoo la sheegay safarka Netanyahu uu ku tagay Mareykanka markii uu socday in uu ka leexday dariiq kamida wadooyinkii uu mari jiray oo uu gooyay wadamada qaar asagoo ka baqay maxkamadda dambiyada dagaalka in hawada dalkaasi lagu dhex qabto oo ay maxkamadaasi dowladahaasi ay u hoggaansamaan sharciga maxkamadda ICC waxaase iyana yaable in la yiri Trump markan Netanyahu shuruudo adag ayuu hordhigay si looga qaado canshuurta la dul saaray Israa'iil qorshe weyn ayuuna ka watay baa la leeyahay Trump ujeedka uu dul saaray Israa'iil canshuurta 17% iyana macluumaad cajiib ah ayaan idinkaga haynaa oo ah ninkii Netanyahu ahaa oo xaalad adag hadda dhex fadhiyo qodobka ugu dambeeyana waxaan isku eegi doonaa hadal galabta ka soo yaray mid kamid ah afhayeenada Hamas oo ku aadan awoodda ururkaas iyo waliba inay ilaa iyo hadda awoodaan inay Israa'iil xanuunjiyaan oo iyana dhankooda ay nasanin duqaymadii xalay ay la kulmeenna kaliya inay ahaayeen bilow culays cusub oo ay doonayaan Hamas inay ku wajahaan Israa'iil maxay tahay waxyaabaha ay sheegayaan inay u adeegsan karaan dagaalka ay kula jiraan Israa'iil ugu dambeyn maamulka Netanyahu militariga Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa inay hadda ogolaadeen si shuruud la'aan ah in magaalada Gaza isbuucyada ay maalmaha soo socdo in muddo ah inay u fasaxaan si magaalada uu soo galo raashin ku filan cunaqabateynta ay uga qaadaan shidaal sidoo kale maxaa keenay baa la leeyahay khubarada arrimahan aad uga faaloodo waxay leeyihiin Israa'iil waxay dareemeen cadaadis dhanka bulshada caalamka in indhihii oo dhan Israa'iil hadda ay ku soo jeesteen kadib markii hay'adaha UN-ka dhammaan ay ku dhawaaqeen in hadda magaalada Gaza ay macluul daran gashay oo dadka reer Gaza xaalad adag ay ku jiraan waliba caruur iyo dumar badan nafaqo la'aan laga soo sheegayo maamulka Netanyahu ayaa gabi ahaanba magaalada Gaza ka joojiyay cunnadii shidaalkii iyo sidoo kale daawadii iyadoo isbitaalada haray ee aadka u yar magaalada Gaza ay oolin wax daawo ah dadka ma haystaan dhaawacyada xanuun baabiya ma haystaan wax lagu daaweeyay malan antibiotic ma jiro dadka daawo dhan ma haystaan magaalada daawadii ka dhamaatay oo hadda waxay maraysaa meel ebra daawada magaalada Gaza waa magaalo aan isbuuciyo wax daawo soo galin dhaawacana maalin walba ay dhaawacmayaan dad aad u badan dhimashaduna ay tirada kor u sii kacayso iyadoo isla markaana militariga Israa'iil ay duqaymo daran ka wadaan magaalada dhanka kale cunnadina waxay ka mid tahay waxyaabihii ay jareen hadda marka waxa leeyahay maadaama dhanka sharciga culays badan la saaray oo meesha dambiye dagaal oo waaweyn oo hore loogu haystay haddana ay dhalin karta midana inay ku sii ziyaadiso waxyaabihii lagu haystay iyo sidoo kale bulshadii caalamka iyo dadka caadiga oo dhahaya morally damiir ahaan waxani wax la sii eegan kara maahan wayna adduunka waxani wax ka bedela bulshada caalamka ma sii eegan karto iyadoo cadaadisku ay saarayaan dalalka carabta ee aad u yartahay oo aad moodo inta ka hadlaysa inay yartahay ama ay jirinba haddana dadka caadiga ahaa xilliga lagu jiraa xilli yaab badana oo waa xilli tiknoolajiyada meel walba caalamka qaryada wixii hal magaalo wixii ka dhaco ayaa caalamka intiisa kala dhan ogaanaya baraha bulshada oo dhan baa la soo gelinaya dadka magaalada Gaza oo macluul badan ay ka muuqato dhibaato warbaahintii ayaa ka hadlayso muddo aad u fog in magaalada Gaza cunno la'aan ay tahay gawaaridii kaalmada soo galaysa laga joojiyay shidaal ay haysanin daawo ay haysanin marka hadda waxay leeyihiin nidaamka Netanyahu haday Hamas ogolaato wada hadal iyo heshiis dadka Israa'iil loo soo deynayo iyo hadii kaleba
وفصحينا وايو وذا هذا لبا وجي لبا قاب أيام هذا اللي يسكون في الأسرع إسرائيل وربط توقف إلو سودايو حماس هوب كونكتين ربط إيه حماس ويانا تاجن شنقو فينا يسود دينيسو إسرائيل يكبح يسمى مجال القزاء ولا يسكون مريلا يعني marka waxay leeyihiin hadda shuruudahaas ma sugeynaya heshiis Xamaas la galo dadka qasar raashinka oo soo fasaxayna cunada iyo daawada iyo shidaalka si ku meel gaara ilaa iyo muddo isbuuciya ay sii soconayaan hadii intaas xal lagu gaaro waa sida la rabay hadii lagu gaari waayana waxay leeyihiin magaalada sidan ma sii ahaanayso iyagiyo markaan ku adkaatay inay sii fiirsadaan iska dhaaf bini aadamka iska dhaaf dadka reer Gaza dadka banaanka iska dhaaf Israa'iisha laftirkeeda gudaheedii ayaa hadda waxa u muuqata macquul inay sidaan ku sii jiraan ilaa dadkii baa baahay u dhimanaya hadda si kastaba noqotay arintaas sida Israa'iil gudaheeda maanta warkaas uga soo yeeray ka waran wasiirka is hortaagay ee dhahaya looma fasaxayo raashinka iyo daawada iyo cunada waa wasiirka loo yaqaan Bezalel Smotrich oo ah finance minister wasiirka dhaqaalaha ama ganacsiga wuxuu leeyahay haddii arintani ay dhacdo la fasaxo Xamaas waxa uu suuragelayay inay hesho shidaal inay hesho raashin ay ku sii dagaalanto si arintaasi u suuragelin ma qabo buu leeyahay mana aaminsan inay fakar sax tahay aqli saliim inuu yahay ma qabo in loo fasaxo Gaza xilligan raashinka cunada iyo shidaalka waxaan jeedaa raashin iyo cunno isku mid ah waa cuntada shidaalka iyo daawada saddexdaas in loo fasaxo ma qabo buu leeyahay oo marka ma dadkii daawo la'aan bay u dhimanayaan ma cunno la'aan u dhimanayaan ma waxay u dhimanayaan shidaal la'aan ila shidaalku waa muhiim buu yahay cunnadii ku karsanayaan gurigii bay ku iftiisanayaan hawlahoodii nolol maalmoodkoodii dhan baa ku xiran magaalo aan shidaal oo dhan lahayn cunto aan lahayn daawo lahayn dadkii dagaal ku dhex socdo la duqeynayo kaarayaasha Israa'iil magaalada baabiinayaan ayuu wuxuu leeyahay ilaa ay haddana ma qabo in loo soo daayay laakiin inta badan golihii wasiirada Israa'iil nidaamkii Netanyahu hogaamiyaasha ciidanka kulli waxa la isku raacay in magaalada loo fasaxo raashinka marka waan arkaynaa sida xaaladda noqoto wixii ku soo kordho barnaamijyada dambe ayaanu ku wada isku leeyigi doonaa walaalaha qiimiga loo waxaynu toos ugu gudbeynaa qodobka xiga barnaamijkeena maanta booqashadii Netanyahu uu ku tagay aqalka cad war yaab la ayaa ka soo kordhay waa markii labaad laba bil gudaheed Netanyahu uu booqdo aqalka cad dalka Mareykanka tan intii la doortay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump Netanyahu safarkan uu ka duwan yahay safarkiisii hore oo waxa la leeyahay markan wuxuu u tagayaa taarifka ama canshuurta badeecada Israa'iil ee Mareykanka soo galaysa uu dul saaray Donald Trump marka dadka waxa ilal helay oo warbaahintu ay heshay sida Al Jazeera ay ka soo xiganayso warbaahinna kale ila u dhow aqalka cad ee Mareykanka ayaa ku waramaya in Trump markan uu gadan leeyahay ujeedka u saaray canshuurta Israa'iil ee wadamo kaga dhow ay Israa'iil iskaga dhawaayeen ayaa inta Israa'iil la saarin Ingiriiska kamid ah 10% baa la saaray dalalka Asia qaar baa 10% la saaray dalalka qaar canshuur lama saarinba maxaa marka Israa'iil uu target gareystaa leeyahay oo dhaqaalaheedii budgetkeedaba ay caawiyaan ciidankooda ay biilaan billions ay uga baxaan maxaa hadda lacag looga qaadaa maxaa ciriiri loo saaraya waxa la leeyahay Trump wuxuu rabaa Netanyahu iyo golihiisa wasiirada inuu ka baajiyo dagaalkan zaa'idka ay bariga dhexe ay ka abuurayaan Trump waxa aad u soo koray baa la leeyahay dagaalada ka socda bariga dhexe nidaamka Netanyahu waxay weerareen Suuriya ay habeenna iska duqeynayeen sabab la'aan ayagoo Lubnaan dagaal kale ka wada koonfurta Lubnaan Gaza dagaalkeeda oo maamulka Trump aad loogu cambaareeyay dagaaladii uu sheegay Trump inuu xadidayo hadii la doorto ayaa la leeyahay caalamku way ku sii fidayaan oo dagaal dhaqaale mid military oo Israa'iil maalin walba waxay rabtaa Netanyahu kooxdiisa inay ku furaan aqalka cad Mareykanka Donald Trump dagaalo cusub oo hadda xaalad waxa la geliyay xuutiga Mareykanka xuutigu meel u dhaafulaya heer waxa la garay maraakiibtiisa badda cas ay iyaga nidaam difaac cusub u keensadaan markabkii ugu weynaa Mareykanka ee diyaaradaha dagaalka qaaday USS ayaa gambad maraya gantaalada iyo droneska xuutiyiinta si baan loogu garaacayo nidaamkii difaaca Mareykanka taad waxba uu ka qaadi laayahay oo isoo laba u geeyay ay wali garaacayaan xuutiga Israa'iil magaalooyinka waaweyn Israa'iil airportka Ben Gurion baa ilaa hadda shaqeyn la
ayadoo xaaladaas ay ku jirto haddana Netanyahu wuxuu rabaa inuu weeraro Syria oo wuxuu rabaa inuu Turkiga halkaas ku dhex dagaalaan xaaladahaas oo dhan baa la leeyahay si uga baajiyo heshiis iyo xabad joojin uu uga dhameeyo Gaza oo xaaladda Gazana uu wax ka bedelo Lubnaan uu ka saaro ciidanka Israa'iil xaaladda Suuriyana uu pressure ku saaraa macadaadis canshuurtaanu dul saaray baa leeyahay marka canshuuraha uu saaray dalalka kale way ka duwan tahay beelayn dadka ka falan qaado ama ka hadlo arrimaha dhaqaalaha oo sababta Trump waxaan oo dhan u sameeyay Israa'iil uu u beegsanayo ma ahan si gaar ah inuu Israa'iil uga doonayo dhaqaale inuu uga soo galo canshuurta uu saarayo laakiin waa gorgortan siyaasadeed baa la leeyahay hadda Netanyahu durbadii wuxuu tagay meesha loo yaqaan aqalka cad isagoo la kulmay Donald Trump maanta oo Isniina laakiin sheeko kale oo yaab laha meesha ku jirto markii Netanyahu uu sii socday aqalka cad waxa uu sii maray dalalka qaar isagoo ka leexday dalalka qaar dariiqa isagoo ka baqayay dalalka qaar inay fuliyaan xukunka sharxad maxkamadda dambiyada dagaalka ICC waa kuwa dalalka u gooyay oo ka leexday waxa kamid ah Ireland Netherlands iyo Ireland sabab maxay tahay Ireland Ireland Netherlands saddexdaas dal uga wareegtay wuxuu aaminsanaa baa liiri ama la taliyaasha dhanka sharciga Netanyahu waxay aaminsanaayeen dalalkan maadaama saxiixayaasha ICC ay ka mid yihiin isla markaana aragtida Israa'iil ee dagaalka Gaza uga soo horjeedaan inay fulinayaan xukunka maxkamadda ay ka baqeen saadarteed bay waxay mareen dalalka kala ah si ay jidka uga leexdaan waxay mareen Croatia Italy iyo France ay diyaaradda Netanyahu dul martay sidaas ayna aqalka cad ku tagtay meesha waxa laga garanayaa in madaxda Israa'iil inay walwal badan ku hayso maxkamadda dambiyada dagaalka inkastoo ilaa hadda ciidankeeda iyo madaxdeeda sharciyad loo soo qabtay oo maxkamad lagu keenay aysan jirin laakiin mar walba waa kiis ku furan hadii Netanyahu uu xilka sii hayo iyo hadii uu ka dagaba iyo hadii aan la geyn intaba caalamka dalal badan waxay ugu aqoonsan inuu yahay dambiye dagaal iyadoo warbaahinta qaar ay arintaasi maanta aad uga hadlayeen waayo walaalaha qiimiga loo waxa inoo soo socdo qodobo ay ka mid yihiin afayeen kamida afayeenada ururka Hamas oo si yaab leh uga hadlay weerarkii xalay ay ku qaadeen gudaha Israa'iil iyo sidoo kale inuu sheegay wali khatartii Israa'iil sheegaysa in Hamas ku tahay nabadgelyada Israa'iil inay wali khatarta ay meel ka qatarsan ay sii joogaan ayuu sheegay maxayse wax yaab kale uu ku hanjabay afayeenkaas barnaamijka isku leeyigi doona qodobka waxaad ku maqli doontaa sidoo kale weerarada Israa'iil maanta magaalada Gaza si daran uga fulisay gaar ahaan dhismo ay ku jireen qaar kamid ah wariyaasha magaalada Gaza ka howlgalayay oo ay ku dileen wariye caan oo si daran ugu gubtay muuqaalo argagax leh ayaa Gaza maanta ka imanay qodobadaasi kuwa kale ayaad ku maqli doontaa marka hore se walaalaha qiimiga leh waa inuu ku yaraa ka rajaynaya walaalaha qiimiga leh inaad qorateen oo aad la xiriiri doontaan qaybihii u dambeeyay barnaamijkeena galabnimo ayaynu soo gaarnay galabta oo galab Isniina qodobkan waxaan isku leeyahay weeraradii u dambeeyay maanta militariga Israa'iil ay sida daran ugu duqeeyeen gudaha magaalada Gaza ayadoo lagu soo waramaya in bambaanooyinka ay ku garaaceen dhismo ku yaala magaalada Gaza gaar ahaan koonfurta magaalada Gaza Khan Yunis ayaa la sheegay inay ku waxyeello ku gaartay qaar kamid ah wariyaasha magaalada Gaza oo uu kamid yahay suxufiga weyn Hilmi Al-Faqawi ayaa la arkay isagoo si daran ugu gubanaya dhismihii militariga Israa'iil ay garaaceen iyadoo la arkay muuqaalka wariyahaas oo dabka dhinac walba uu ka qabsaday inuu ku dhax gubtay halkaasi isagoo la arkay si toos ah ay warbaahinta maanta u soo tabinayeen sawirro ay adag tahay inay ishu qabato qalbigana uu aqbalo wariyahan ayaa la sheegay qayb walba oo jirkiisa kamid ah in halkaasi ay si daran ugu gubatay oo halkaasi uu ku dhintay iyadoo 8 kale oo wariyaal ahna ay ku dhaawacmeen dhaawac daranna uu soo gaaray isla dhismahaas uu ku sugnaa wariyaha caanka ah ee halkaasi ku geeriyooday Hilmi Al-Faqawi hay'adaha u dooda xuquuqda caalamiga xuquuqul insaanka ayaa dhammaantood aad u cambaaray weerarkii maanta ay ku sheegeen inuu ahaa mid bahalnimo ah Israa'iil ayaa guud ahaan maanta si daran u duqeysay magaalada Gaza iyadoo dhimashada maanta oo kaliya la sheegay inay marayso 87 qof oo reer Gaza ah dhaawac ayaa la sheegay isagana inta uu ka badan yahay magaalada Gaza ayaa guud ahaan hadda dadka reer Gaza waxaanu jirin goob ammaan ah oo ay ku gambadaan ama gabaad ay ka dhigtaan iyadoo dhismayaasha iyo goobaha dadka ay ku nool yihiin
ay tahay teendhooyin ay xitaa dhaxanta iyo dabaylaha aysan ka hargeli karaynin. dadka ayaa waxaa ka muuqda dayac isla markaana magaalada ayaan haysanin adeega dadweynaha ay u baahan yihiin. qaybtii ugu weyneed magaalada Gaza gaar ahaan koonfurta magaalada Gaza oo ah meelihii kaabaha dhaqaalaha ugu badnaa magaalada Gaza uu ka soo galayay suuqyadii ayaa gabi ahaanba ugu dambeyn Xamaas ay maanta ku dhawaaqday in 90% gumaystaha ku soo duulay Gaza ay burburiyeen. muuqaalo aad naxdin u leh ayaa ka imanaya magaalada Gaza oo muujinaya burburka lixaadka leh ee gaaray koonfurta magaaladaasi, iyadoo guud ahaan Xamaas ay sheegtay hadda kaabayaashii dhaqaalaha magaalada Gaza dhismayaasheedii guud ahaan intii u dambeysay hadda inay burbureen oo ay burburiyeen militariga Israa'iil iyagoon u kala saarin isbitaal, iskuul, masaajid iyo goob walba oo bulshada reer Gaza muhiim u ahayd. waayahay walalaha qiimiga leh oo arrintan naxdinta iyo nasiib darrada leh markaynu meesha uga gudubno waxaynu u gudbeynaa qaybtii u dambeysay barnaamijkeena galabnimo maanta oo galab misniina. mid ka mid ah afhayeenada Xamaas ayaa maanta sheegay in ururka Xamaas ay wali awood u leeyihiin inay Israa'iil iyagana ku beegsadaan deegaanada ay ku sugan yihiin gaar ahaan gudaha Israa'iil. waxa uu afhayeenkaas sheegay sida Al Jazeera ay ku waramayso weeraradii maanta ay la kulmeen aan iraahday xalay ay la kulmeen Israa'iil 8 ilaa 10 gantaal ee ku dhacday gudaha Israa'iil ee waxyeelada iyo burburka gaarsiisay qaybo ka mid ah deegaanada Yuhuudda ay ku sugan yihiin in ahayd oo kaliya buu yiri bilow duqeymo iyo weeraro cusub oo Israa'iil ay filan doonto maalmaha isbuucyada soo socda. Xamaas waxa ay sheegtay hadda kadib inaysan u harsanayn waxa Israa'iil ay kala hadlaan ama ay kala gorgortamaan oo aan ahayn in dhibicda ugu dambeysa noloshooda inay la dagaalamaan oo ay gumaystaha naftooda iyo maalkooda uga hortagaan. Xamaas ayaa la sheegay xalay weerarada ay qaadeen ay ahayd kuwa nidaamkii difaaca Israa'iil u suurageli waayay in ay joojiyaan ama hawada ay ku celiyaan. nidaamka Israa'iil Netanyahu ayaa aad u sheegi jiray in gantaalada laga soo tuuro dhinaca Xuutiga iyo kuwa ka imanaya magaalada Gaza dhammaantood in hawada lagu qaban jiray, laakiin sawirada iyo muuqaalada xalay ka imanaya magaalada Gaza way ka duwanaayeen muuqaaladii hore ay soo gudbin jireen oo waxaa la arkay dhismayaal gawaari burbur u gaaray iyagoo meelaha qaarna la sheegay in ay dad ku dhaawacmeen oo dhaawac halis u gaaray iyadoo ay ilaa hadda la soo wariyay 3 qof hal meel oo kaliya inay ku dhaawacmeen taasna ay sababtay weerarada Xamaas. si kastaba ha noqotee Xamaas ayaa hadda sheegaysa iyagu inay diyaar u yihiin duqeymada inay sii kordhiyaan oo ay tusaale u tahay sida xalay ay u beegsadeen deegaanada Israa'iil gudaheeda goobo kamida. si kastaba ha noqotee wada hadalladii ayaa wali wax rajaa ilaa hadda aan muuqanin iyadoo la isku mari lahayaa qodobada iyo shuruudaha heshiiska. laakiin safarka Netanyahu uu ku tagay aqalka cad miyay wax ka bedeli doonaan mowqifka Israa'iil ee ku aadan heshiisyada ay la galaysa Xamaas iyo guud ahaan sida Israa'iil uga baxaysa magaalada Gaza iyo dadka Israa'iil laga haysto loo soo daayo. dhanka kale gudaha Israa'iilna waxa wali ka socda mudaaharaadyo iyo cabasho ay muujinayaan dadkooda wali ay ku jiraan gacanta Xamaas oo ay militariga Israa'iil xoog ku soo dayn. waxa ilaa hadda shaki aan ku jirin militariga Israa'iil ballamadii ahaa inay xoog ku soo daynayaan inaysan wali hadda u suuragelin oo aysan dhicin hal qof oo xay ku soo furtaan ayadoo dadka muuqaalada ay soo daynayaan Xamaas oo ay ka dhex muuqdaan dadka Israa'iil laga qabsaday 7 Oktoobar dhammaantood inay dalbanayaan in la soo badbaadiyo wada hadalladii xabjoojintana dib loogu noqdo haddii kale naftooda halis ay galayso. guud ahaan barnaamijkeeni galabnimo oo aad kala